maanta taariikhda taysta xilaatanka bisha 7 2025 waxaan joognaa degmada Cadaadley gaar ahaan tuulada Garhka Warsamaxaad oo ay hay'adda kaydka raashinka hay'adda diyaargarowga afooyinka kaydka raashinka qaranku ay soo gaarsiisay 300 qoys deeqdan oo ay soo bixisay hay'adda King Salman Foundation oo runtii xiriir qoto dheer la leh hay'adda diyaargarowga afooyinka kaydka raashinka qaranka iyo guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adda waxaan uga mahad celinaynaa wada shaqaynta joogtada ee nala leedahay iyo siday u garab istaagtay dadkeena danyarta iyo dadkeena abaaru saameeyeen runtii waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo siyaasadiisa iyo ballanqaadkiisu ahaa in la garab istaago dadkeena xilli kasta goob kasta iyo goor kasta waxaan kaloo u mahad celinayaa gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga afooyinka kaydka raashinka qaranka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Dixood iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdiraxmaan Maxamed Xamdulle oo runtii kaalin weyn ku lahaa sidii deeqdan ay u soo gaari lahayd deegaanada gobolka Maroodijeex dhamaantii iyo gobolada kale Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaloo u mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada Cadaadley Mr Mustafa oo runtii si weyn oo la shaqeeyay isagii maamulkiisa kalaba sidii deeqdan ay soo gaari lahayd degmada Cadaadley iyo deegaanada hoos yimaada oo runtii ay ka jiraan xaaladaha abaareed taasoo kala sameeyeen xaaladaha abaareed ka jira guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmadu runtii waa degmo ballaaran hay'aduna si dhow u wada shaqeeyaan oo ma aha deeqdan markii koowaad aynu gaarsiino laakiin si weyn baan wada shaqeynaa waxaan uga mahad celinayaa dadaalka joogtada ah gudoomiyuhu geliyo sidii dadkiisa xilli walba wixii loo helay soo gaari lahaayeen waxaan uga mahadnaqayaa inuu soo xulay dadkii u baahnaa oo ku wareejinay 300 qoys waxaan kaloo u mahad celinayaa shaqaale weynaha hay'adda Naadford oo guud ahaan ka hawlgelay gobolada Soomaaliland raashin ka qaybinay gaar ahaan shaqaalaha gobolka Maroodijeex aad baan u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku sugannahay magaalada Garhka Warsamaxaad ee ka tirsan degmada Cadaadley anagoo ku hadlaya afka degmada Cadaadley waxaan halkan uga mahad celinaynaa marka hore mahad Ilaahay baa iska leh marka labaad waxaan mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adda kaydka raashinka uu hogaaminaya Cabdiraxmaan isaga iyo gudoomiye ku-xigeenkiisaba kuwaas oo suurtageliyay in ayna soo gaarsiiyaan deeqdan raashinka ah taasoo isugu jirta ka kooban 300 qoys isuguna jirta bariis baasta sonkor iyo saliid intaba waxaan leeyahay wayna soo gaadhay waanaanu haynaa waxa ay ku soo beegantay xilli ay ku haboonayd taasoo ah xilli ay roobabku yareeyeen sidaynu ognahay oo ah waqti maanta aad iyo aad loogu baahan yahay baahi weyn loo qabay taasoo muddo dheer sidaynu uga baranay hay'adda kaydka raashinka ee aanu la xidhiidhnay shaqada iyadu ahayd taasoo sanadkiiba hal mar dadkan soo gaarsiisa deeqdan haddii aanay dhicin dhibaatooyin kale oo sida dhibaatooyinka kale ee dabiiciga ah ee soo noqnoqda haddaanay dhicin sida caadiyanka taasoo na soo gaarsiisan sanadkiiba hal mar waxaan leenahay sanadkan inkastoo ay dib u dhacday oo ahayd xilliyadeedii aanay ahayn caadiyanna raashinkani aanu ahayn kii looga bartay hay'adda kaydka raashinka oo uu yahay maanta mid ka yar oo intii aan ahayn haddana wixii la helaaba alxamdulillaah si wanaagsan baan u gaarsiinay waxaan mar labaad isna u mahadnaqayaa saaxiibkay Cabdixakiin isuduha gobolka Maroodijeex kaasi oo dadaal badan gaarsiiya galiya sidii uu heli lahaayeen dadkiisan iyo deegaanadiisan iyo gobolkan uu madaxda ka yahay hay'adahan u qaabilsay inay helaan mar walba raashinka waxa kale oo mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Barsaab Cadaad Professor Cadaad kaasoo isaguna sida runtii ah la geliya mar walba juhdi badan iyo dadaal fara badan waxaan leeyahay dadweynahayga reer Cadaadley khaasatan reer Garhka aan joogo waa ku mahadsantiin sida fiican ee soo dhaweynta iyo xurmadda ee mas'uulnimadu ku jirto una qaadateen wixii maanta la idin keenay una aqbasheen una fariisateen sida bilaa saxmadda ee bilaa buuqa ee bilaa rabshada taana waa idin ka mahad celinayaa insha Allah ta'ala inagoo heli doona wixii uu Ilaahay inoo qoray haddana waxay keenaysaa tani maanta in indhaha hay'adda iyo dawladda ku soo jiidataan inaynu helno waxa ay wax ka badanba anaguna waa ku dadaalanaa saasiga isku ogaanana mudanayaal iyo marweyn aad iyo aad baan u salaamaya xukuumadda dhammaanteed